بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا إلهي بمهد مهد إلهي كسكو وحن حالك مانتا شركة يجن دراي دارين يهي هاوشاني كسعوت الدقمدة الديوان قلنت هاوشا صومالنتي صدحات صعوتا goobaha ay ka socotaana ay tahay 790 goobood labadan maalmood ugu horeeyayna waxa diiwaan gashay 3280 maalintii hore maantana shalayna 5307 qof marka hawsha diiwaan gelintu sidii loogu talagalay u socotaa oo waliba degmooyinka kale ayna ka bilaabmin baan anagu waliba hawshaasi sida ugu dhaqso badan aanu bilownay wafilillahi alxamdu sidii loogu talagalay oo socota aad bay u wanaagsan tahay diiwaangelintaasi waa waxna loo baahnaa in dadka ku nool ama dhallaanka ku nool degmada ama magaalada gudaheega in la helo tiro koobtooda in hore loo keenay ahayd laakiin shaqadu sida maanta u bilaabantay hadii tuu socon doontaa wax walbana degmada sidii loogu talagalay u socdaan hawshan sixir bararkeed ee niyar xadanteynaysiina waa mid ummadda oo dhan haysata ilaahay baan horta ka la baryaynaa inuu naga dejiyo walba ilaahay baa dejiya maciishadu inay nagu kacdana ilaahay baan ka la baryaynaa nimanka ganacsatada iyo sariflayaashana waxaan leenahay ummadiina u tura sixir barar horaan u soo aragnay faa'iido lagama gaadho cid kasta ummadda dhibtaa cuqubada ummadda ka daba timaada taha ogsoonaadaan qolada sixir barar cid kasta ummadda dhibta oo u naxariiso weyda cawaaqibtiisa dambe ay saameyn ku yeelan doontaa ummadiina haloo naxariisto haloo turaan leenahay kulleyta runtii mushkiladaas oo mushkilad Afrikada bariba taala innagana muduwa sixirkaasi naga deganaa ilaahay xaqiisa naga soo celiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.